garaad wiilwaal. dhegaystayaal inkastoo aysan qasab ahayn inay run wada noqdaan haddana sheekooyinka iyo dhacdooyinka loo wariyey waxayna barayaan garaad wiilwaal inuu ahaa si walba nin isugu dayey inuu muujiyo rag inuu wax dheer yahay. taasi dhallinyaranimadii ayay ahayd. haddii la shuumay kadib oo uu garaad noqdayna waxba iskama beddelin. ma uu noqon oo keliya nin madaxa oo meel fadhiya garta iyo taladana loola yimaadee wuxuu kordhiyey feejignaantiisii hore iyo indhihii shakiga ee rag oo dhan uu ku eegi jiray. ninkii uu dareemo inuu qorshihiisa takeleel gelin karaba wuu u dardaar wariyey, wuxuuna ku beeray seexanwaa iyo cabsi joogta ah. labadii waran iyo gaashaankii uu mataanaha isaga dhigay ayuu sidiisii hore ugu maran yahay. tallaabadii xaggiisa loo soo qaaday iyo ereygii lagu yidhiba waxay ku abuureen feejignaan hor leh. wuxuu isu ilaaliyey sidii uu yahay nin ay dunida oo idili ku heshiisay inay nafta weysiiso. waa yaabe col dibadda laga soo diro oo isaga uun loo soo qaybiyey miyuu ka baqaayey? ma dilkii aabbihiis buu ku weyraxay? markaas bay ula ekaatay in boqortooyada lagu daba joogo oo laga yaabo inuu iyada eersado. mase wuxuu ogaa oo magliga iyo midida la raadinayay dadkii uu u talin jiray qaar ka mid ah oo uu ku gabood falay, sidaasna uu ugu godobaysnaa. soomaalida ayaa waxay murti kula baxday dhulka ayaa lagu yidhi dhulow ballaar badnilah. markaas buu ku jawaabay ballaarkaygu muxuu tari haddiiba nin godob qaba aan qarin waayey. feejignaantii wiilwaal markii la togdo ayay soo bixi karaysaa sida ay murtidaasi dhab u tahay. socod iyo nagaansho, hurdo iyo soo jeed, shir iyo kelinnimo, ceel iyo carshin, meel kasta ha joogo si kastana ha ku sugnaadee qalab dagaal baa gacanta ugu jira. dhiila ayuu ku seexday, aamin darro uu uunka eebba ka qabana wuu ku soo toosay. alla malaha utuntii ku maqnaydi cuslayda. waxay sheekooyinka wiilwaal ina barayaan inuu ahaa nin xeel iyo xirrid badan oo arrintii soo food saartaba furdaamin kara. waxaa la yidhi dumarkii uu qabay oo 4 ahaa ayaa qaarkood qaarkii kale ku masayrayoo dagaal af iyo gacan balihi dhex maray. waxay ku murmeen baa la yidhi heblaay adiga waa lagu nacayoo garaadku kuma rabo, adigu waad iska joogtaa uune beri hore ayaa lagaa tashaday, aniga ayaa la iga kaa jecel yahay, gogashayda gogol kale weligiis ku doorsan maayo iyo hadallo kuwaas la mid ah. raggii u dhow dhowaa qaarkood ayaa damcay inay dumarka garaadka heshiisiiyaan, isagii baase diiday. wuxuu ku adkaystay isaga mooye inaan xaajadaa cid kale loo agmanayn. afartoodii tu walba oo ka mid ah intuu goonni ula faqay ayuu ku yidhi caawa fiidkii kolkay tahay meel hebla imow, aniga ayaa idinkala saaraya. markuu aaskii dumay oo ay goobtii ku soo wada urureen ayuu ku yidhi afartiinuba sii jeesta oo isgarab joogsada. tii aan idin jeclahay dhabarka ayaan ka taabanayaa ee ha iska tagto iyada oo aan dib ii soo eegin. afartoodiiba dhabarka ayuu ka taabtay. dabadeedna sidaa la sheegay mid waliba iyada oo faraxsan ayay horteeda u dhaqaaqday. waxaase haray inaan isweydiinno taasi ma sheeko dhab ah oo dhacdayba ah mase bulsho ragga oo qura qiimaysa waatay ahayde waa sheeko loo maleegay in garashada dumarka lagu liido. tan dambe u maleh. waxaa kaloo la sheegay waayihiisana laga garan karaa garaad wiilwaal inuu ahaa nin murtidhaari ah oo aan hadal seegin, nin jeclaa rag iyo dumarba inuu dadka xujeeyo si uu ugu daadego bal garashada qofku inta ay qodan tahay. ruuxa uu xujaynayaa haddii uu rag yahay asi uu si wanaagsan xujooyinkiisa kaga jawaabo dareen baa ka geli jiray. wuxuu u arki jiray halis ay tahay inuu iska horwareejiyo. markaas buu ku dadaali jiray isaga iyo ninkaasi inaanay carro bartira ku wada noolaan. haddiise ruuxaasi uu qof dumara yahay wuu guursan jiray ama nin xigaaladiisa ka mid ah ayuu guursigeeda kula talin jiray, welibana u dhisi jiray. marka ay waliyayaashu doonayaan inay muujiyaan sidii uu wiilwaal u ahaa murtidhuux qof walba tiraabkiisa aad ugu fiirsada, waxay soo qaataan sheekooyin isaga loo saariyo oo tan soo socotaa ay ka mid tahay, kuna saabsan sidii uu ku guursaday qaar ka mid ah dumarkii uu qabay. waxaa la yidhi
isaga oo xujo uga dan leh ayuu maalin maalmaha ka mida meel degmada dhexdeeda ah awr ku qalay dabadeedna wuxuu u yeeray degmadii uu u talin jiray raggii joogay qaarkood markaas buu ku yidhi ninkiin walba waxaan ka rabaa hilbaha ratigaas intuu isdul taago inuu iga keeno cadka xubnihiisa ka midka ah ee ragga israaciya sidii uu ninba ula soo boodayay xubin aan ahayn tii uu garaadku maskaxda ku hayay ayuu markii dambe oday ragga ku jiray hungurigii awrka u keenay wiilwaal baa kolkaa la yaabay oo inta ka shakiyey duqiina hoos u eegay ku yidhi war adigu ma aad garanne yaa kuu sheegay hadduu yidhaahdo aniga ayaa gartay wuxuu malaha ka baqay inuu ku xujoobo oo uu dhegta dhiigga u daro sidaas darteedna wuxuu ugu jawaabay garaadow inan aan dhalay baa ii sheegtay wiilwaal baa kolkaa gabadhii u bogay wuxuu ku maleeyey inay caqli doora leedahay kolkaas buu toyday bal inay guurgal tahay iyo in kale waxaa loo sheegay inay guurgal tahay hase yeeshee ay nin u doonan tahay loona ballansan yahay in dayrta soo aadan loo dhiso isla markiiba wuxuu guddoomiyey inay naag garaad noqoto ninkii ay u doonanaydna 10 sac ayuu ku aamusiiyey kaasoo isna isu qaatay inuu ayaan badan yahay sidaas ayuu wiilwaal kula aqal galay gabadhii Tibira la odhan jiray kii laga meershayna wuxuu naftiisa ku maaweeliyey labadan meedisoo gabayga ah wuxuu yidhi garaadkii hadduu Timira helay waa ku taamahay aniguna haddaan 10 sac helay waa la ii taliyey waa samray waa samir taagwa afaraad waayihii iyo sheekooyinkii garaad wiilwaal dhegaystayaal sheekadii darteed uu wiilwaal Tibira ku guursaday waataan toddobaadkii hore idiin mariyey intuu awrka qalay waatuu raggii ku xujeeyey in mid waliba u keeno cadka ragga israaciya odayadii degmada midkood intuu xujadii gartay waatuu u keenay hungurigii ratiga kolkaasna inta dareen cusubi ku soo kordhay waatuu wiilwaal odaygii ku yidhi war adigu xujadayda nin furi kale uma ekide yaa kuu sheegay odaygiina inta ka baqay garashadiisu inay galaafato waa kii ugu jawaabay waa runtaa garaad oo anigu nin wax garan kara ma ihie waxaan ka soo guuriyey inan aan dhalay oo cadkaan oo aad u dan lahayd ii sheegtay waatuu wiilwaalna intuu gabadhii u bogay markiiba guddoomiyey inay isaga afadiisa noqoto waa kii sidaasna Timira ku guursaday kadib ninkii ay u doonanayd markuu ku aamusiiyey 10 sac oo dhaawacay xilaka qaadka malaha uu kaga dhayaayay maalin kale isaga oo awr ka baxsatay baadi goobkeeda ku jira oo raq iyo ruux toona wax u baytiya uu leeyahay ayuu goor ay barqadii tahay wuxuu ku soo baxay ari fara badanoo dhowaan ruuman uu 7 helay ku kala baahay wuxuu abbaaray inantii la joogtay oo bartamaha ariga taagan geedina samaysanaysa faraskii uu ku joogay intuu soo ag joojiyey ayuu nabdaadiyey dabadeedna ku yidhi gabarey waxba awr baadi ah ma aragtay waxay tidhi indha kama qaadin ha yeeshee balaan maleeye awrta mid dabali imu ku jiray wuxuu yidhi haa markaas bay tidhi mid illi isna ma ku jiray wuxuu ku jawaabay haa markaas bay ku tidhi haddaba raadkoodii uun baan arkay ee ruuxoodii ma arage dhinacaas iyo qorraxa dhaca balka baadi goob sidii ay kula talisay ayuu yeelay galabgaabkiina halkii ay farta ugu fiiqday ayuu ugu tegey iyaga oo si wacan geedaha luqmaha ugula jira hareerigii toomahana ka hamuun beelay karkii awrtu markuu ka dhacay ayaa wiilwaal hadalkii gabadhu ku soo duxay habeenkii meel uu ku bariyeyba barqadii uu la kulmay teedihan ayuu isla meeshii ugu yimid iyada oo aad moodo ariga iyo iyaduba ilaa shalay inaysan docna uga dhaqaaqin markii la isnibdaadiyey kadib ayuu weydiiyey gabarey awrka dabadana sidee baad ku garatay markaas bay tidhi awrtu kolka ay saaloonayso saynta ayay saalada ku kala firdhisaa kaaguse meel keliya ayuu tuuminayey oo sidaas baan ku gartay inay ka maqan tahay sayntii uu wax ku seeraarin lahaa wuu ku celiyey oo wuxuu haddana weydiiyey waa tahaye midka ishara'na sidee baad ku garatay waxay tidhi geedkii uu ku soo hagaagaba dhinac keliya ayuu ka daaqaayey
ee sida awrta kale dhinaca kale uma gudbayn. Sidaas baana ku gartay inuu waa hore labada indhood mid beelay. Subaxdaas buu wiilwaal inantaana u qiray inay tahay qof qorshe iyo quruud leh, isla goobtiina wuxuu ku go'aamiyey carruurtiisa mooyee inaysan nin kale wiil iyo gabar midna u xambaarin. sidaas ayuu ku guursaday Dahabaduula oo gadaalkii noqotay dumarkii uu guursaday tii ugu caansanayd uguna magaca dheerayd. si kastaba ha ahaatee, haddii aynu doono inaan ogaano jawaabaha dadka siduu wiilwaal garashadooda ugu dhudhumin jiray, ka maarmi kari mayno inaynu xusuusanno sheekadii iyo murtidii ka hadhay inankii uu abtiga u ahaa. waxaa la yidhi inan ay walaashii dhashay markiisii horena uu isagu koriyey ayaa kolkii uu hana qaaday reer aabbihii u wareegay. beri dambe ayaa wiilwaal waxaa loo soo tabiyey dadka uu u taliyay qaarkood inay inankii xanteen, kuna sheegeen liita aan rag wax la qaybsan karin, isagana aan ku bannaanayn. hadalkii ayuu liqi kari waayey. waxaa ka dhaadhici weyday ruux ay wuxuun isu galeen sida uu dhaliilba u yeelan karo. dabadeedna inankii ayuu fariin u diray, isaga oo raggii doonayna kula ballamay maalin hebla geedka shirka inay ku soo beegaan. wuxuu doonayaa meel raggii xaman jiray ay ku dhan yihiin inuu inanka su'aalo ku weydiiyo, isaga oo aad mooddo inuu hubo marba haddii uu isagu abti u yahay inuusan ceebayn doonin. maantii dambe kolkii uu shirkii isa soo taagay ayuu wiilwaal inankii kula booday oo 3 su'aalood mar qura isu daba dhigay. wuxuu ku yidhi, maandhow xoola maxaad ka timi? maandhow xaraga maxaad ka timi? maandhow xaasna maxaad ka timi? inankiina isaga oo aan keyrkeyrin in badanna ku maqnaan ayuu ku jawaabay, abti xoola waxaan ka imid geel aan tiro badnayn yarayna, xaragana waxaan ka imid geenyadii xamaro ahayd, xaasna xayn ari ah ayaan ka imid. waxay noqotay gargayrtii goobta fadhiday jawaab ay madaxa u wada ruxeen, si gaar ahna garaadkii u farax gelisay. kolka maxan dambaa jirta, wiil iyo waayeelba shirka intii fadhiday soo waxyaqaan inuu yahay looma wada qirin. soo isla goobtiina kama caddaan wiilwaal oo abtigiisa inuu ku bannaan yahayoo dhab ahaanna ay walaashii dhashay.